waxay yiraahdeen aad buu u gaaban yahay aad buu u jilicsan yahay waana uu aaminsan yahay oo ma noqon karo hogaamiye waxay u arkayeen ciyaaryahan ku habboon kaydka indhahana waxa ay ku sii jeedeen ciyaaryahanada waaweyn ee waqtigaasi sida Ronaldinho, Henry iyo Eto'o waxayna u maleynayeen Messi inuu yahay mid ku habboon kursiga kaydka ma aysan garanayn waxa ay daawanayaan inuu noqon doono xidiga ugu halista badan kubadda cagta abid laakiin qolalka maamulka Guardiola iyo Johan Cruyff aad bay uga fiirsanayeen ma ahayn kaliya inay arkayeen kartidiisa ee waxay ogaayeen inuu yahay hub qarsoon Pep Guardiola waxa uu rumaysnaa in Messi uusan ahayn kaliya ciyaaryahan balse uu yahay system dhameystiran ama koox dhan waxayna kooxdu bilowday inay dhisto koox Messi ku wareegsan qad dhexe oo quudiya si looga dhigo mashiin goolal badan dhalinaya Pep Guardiola waxa uu waday kacdoonka Messi waxa uu ahaa calankiisa Messi waa lama taabtaan ayuu yiri Guardiola sanadkii 2008 taasina waa xaqiiqo ilaa iyo maanta taagan Barcelona waxay diyaarinayeen sirta guushooda ee sanado badan xidiga da'yar ah oo kooxdan ka dhigay mid ka muuqata halka ugu sareysa kubadda cagta Lionel Messi kulankiisii ugu horeeyay waxa uu fadeexiyay Juventus ciyaar saaxiibtinimo isagoo oo goysmo ku dhaafay daafacyada tababarihii Juventus ee waqtigaasi Fabio Capello waxa uu yiri muxuu yahay wiilkaasi yar waxa uu go'aansaday inuu la soo wareego ha yeeshee Barcelona waa ay diiday sababtoo ah waxay ogaayeen inuusan jirin qiimo goyn kara wiilkooda dahabiga kadibna wiilkii daayarka ahaa ee gaajeysnaa waxa uu wajahay Chelsea oo careysan Champions League Messi oo la xirfad fudud haddana aan caadi ahayn ayaa ka careysiyay daafaca kooxda Chelsea ilaa xidigoodii dalhorna uu qaatay kaarka roosada kadib markii uu si xor u faawlay Lionel Messi dhaawac ayuu uga baxay garoonka ha yeeshee bandhigiisa ayuu ku kasbaday in dadka oo dhan u istaagaan warbaahinta Ingiriiskuna way ka aamuseen oo si hoose ay bilaabeen inay uga hadlaan kadibna waxa uu wajahay kooxda Khatafa isagoo uu dhaliyay gool ka yaabiyay dunida kubadda cagta waxa uu kubadda ka soo qaatay bartamaha garoonka isagoo farsamo ku dhaafay afar difaac isla markaana khiyaameeyay gool hayaha waxaana uu si cajiib u dhameystiray goolkaasi goolkanina waxa uu ekaa goolkii Maradona ee 1986 Barcelona waxay ku badisay 5 gool iyo 2 laakiin dadka oo dhan waxay ka hadlayeen kaliya goolka Lionel Messi kadibna waxay la ciyaareen Sargoza 2006 ciyaar muhiim ahayd oo Ronaldinho benchiga la dhigay hase yeeshee Messi ayaa qaatay mas'uuliyadda cid walbana isaga ayay arkaysay ma uusan dhalin gool mana uusan caawin laakiin waxa uu maamulayay bartamaha ciyaarta isagoo ahaa hogaamiyaha kooxda ciyaarta ayuu xakameynayay dadkii daawanayay oo dhan si fudud ay u arkayeen xidigani u soo baxay kooxda Barcelona xilligaasi kadibna kooxuhu waxay bilaabeen inay si tartiib ah u ilaaliyaan tababarayaashu waxay bilaabeen inay dejiyaan qorshayaal ay ku joojin lahaayeen laakiin way awoodi waayeen waxa uu ahaa sida onkod ama duufaan burburinaysa wax walba oo jidka yaala wali dadku si buuxda uma aysan garanayn qofka ay daawanayaan kamana aysan warhayn